أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي mahadiisu haddaan marka kale hawada kusoo laabanay anagoo wanaag isfarayn xumad iska reebin ilaahay subxana wataala waxaan ka baryey ilahayna uu naga dhigaa dhammaanteema kuwa ku intifaaca waxa loo sheegaya. waxaan u socotay silsilo xalaqa ah aan kaga hadlaynay fahamka saxa ah ee islaamka ah. waxaan hore u sheegnay qaybo ka mid ah bulshada oo aad moodid inay dhinaca islaamka dhinacna ay kaga fiican yihiin awaamirtiisa, laakiin awaamirta wixii ilaahay ka reebay ay ku takrifalayaan ayagoo mooday cibaadooyinka ay samaynayaan oo ah awaamirta inay ka kaaftoomi karto xaaraanta ay ku dhacayaan. walidaalika xalaqadeena maanta waxaan kaga soo qaadanaynaa atadayunka waxaa lagu magacaabaa waa atadayun makhshuush ama atadayun daahiri ama shakli. macnaha asalka diinta daahirka ayuu qofka ka haystaa ama shakli ahaan, laakiin tatbiiqi waxaad moodaa khaasatan waan sheegnay awaamirta ilaahay subxana watacala waa lagu fiican yahay. dadka salaada way tukadaan, soonka way soomaan, xajka way aadayaan, sadaq way la baxaan, laakiin wixii ilaahay ka reebay oo ahayd inay qofka muslimka dulmiga iska ilaaliyo, inuu xaaraanta cunin, wixii ilaahay ka xarantameeyey ayuu waxaa laga yaabaa inuu iska sahalsado. walidaalika xaaraantana waa khatar weeye, maxaa yeeley iyada ayaa fasaadinaysa xataa cibaadadaada way fasaadinaysa. balse waxaa la yidhaahaa cibaadada asalkeeda waxaa loo keenay inay xaaraanta kaa celiso. salaada markii la ina salaata tanhaa can ilfaxshaa walmunkar, xumadii kaa rebaysa salaada markii lagu dhahayo macnaha waxa weeye xumada ayaa lamar hadday laakiin aragti nin salaad tukanayo halkaana qish ka wada xumaan ka wada salaadiisa ayaa khatar ku jirto. waxaa laga yaabaa salaadii in la aqbalinba, maxaa yeele haddii ay maqbuul ahaan lahayd xumadii ka reebi lahayd waa isku xiran yihiin. saas daraaddeed ayaa waxaad oranaysaa bulshada inteeda badanba tadayunkaas oo makhshuushka oo qishka ka buuxa ama uu shakliga iska ah ayaa dadka ay ku kasoomaan. khaasatan caalam islaami arrimahaas ayaa lagu imtixaanay. waxyaaba badan arkaysaa oo qofka haddii uu aad iyo aad ugu fiirsado inuu diintiisa ay kaamil noqonayso. diintan waxaa la diraa iyadana in la qaato udkhulu fi silmi kaafa. diinta ma aha ina ilaahay salaadiisa aad tukatid intan xaaraanta aad ka shabaysid, ma aha. waxaa sida ilaahay kaaga ku amray inaad salaad tukatid ayaa waxaa laga xaarantamey waxyaabaa laga xaarantamey. saas daraaddeed maanta xalaqada waxaan kusoo qaadanaynaa atadayun almakhshuush, tadayunka qishka ka buuxa cinda alusar, qoysaska. qoysaska waxaad arkaysaa si aan la soconno usrada qoyska muslimka ah wuxuu ku tiirsan yahay diintu ku tiirsan yahay. diinta ayaa ku banaysa, gabar ajnabi ka ah waxa kuu banaynaya waa diin. waxaan la doonayaa sultada ama hogaankan inay diinta ay haysaa la doonaya. waxaa laga yaaba marka diinta in loo baahdo kaliya dadka inay u baahdaan tadayun makhshuushka markuu dagaal dhaca kaliya inuu diinta loo baahan yahay umaleeya qoysaska inta badan. oo labada qof markay is dagaalaan waxa la leeyahay culimada ha loo tago, ha la weydiiyo furiin ma dhacay ma dhicin. maaha diinta waxaa la doonayaa shalay iyada guriga iyada lagu asaasay, diina lagu asaasay. diinta waxay ku saartay xuquuq iyo waajibaada labada isqaba isku leeyihiin. labadaas ma soo gudanayaan, laakiin markuu dhib dhaco marka waxaa laga yaabaa in lagu tunto. walidaalika waxaa arkaysaa qoys salaada aan ka tegin, ninka salaada waa tukada maasha allah, soonka waa soomaya, sadaqada waa bixinaya, gabadha sidoo kale, laakiin xaaraan ay ku jiraan, sabareeda ku nool yihiin. dowladaha yurub markaan imaano been baa loo sheegay waxa weye arrin sabareedka waa arrin diini weye. diinta katholika qabta separationka, diinteena ma qabto. diinteena waxay tahay alimsaak bimacruuf oo tasriix biixsaan. gabadha wanaag ku hay ama wanaag ku sii daa, laakiin ummad le inay qayaano ay ku noolaadaan ku heshiiyey oo iska dhaadhiciyey qoyskan wuxuu ku noolaan karaa been markii loo sheega gaalada la nool yahay, markuu is yiraaho qoysku waa dumay. walidaalika 80% ama 90 dhehba waxay qoysaska dumay waa qoladii xaaraanta ku heshiisa wey. marka tadayinkooda aawo marka qofkaas aawo salaada qofka aawo. gabar la qaba arkaysaa xijaabkay wadataa shakligeeda maasha allah, haddana waxaa arkaysaa iyadoo aroosyada ka boodayso ama meelaha tiktoka ku jirto iyadoo xijaabkeeda ku raqsinaysa arkaysaa, ku nikinaysa. war diinta shakli ma aha. gabadha diinta ku tiri xijaabka qaado xayaa ay ku amartay, xishooday ku amartay diinta. laakiin inaad ka qaadatay diinta dhinacan aad tirahdo wallahi dadka waa iska asturnahay. balse waxaa laga yaabaa gabar xijaaban oo ummadda darteeda isku xijaabtay kaliya inay jirto oo salaad aan tukan aan soomin,
salaad ma tukato laakiin banaanka markaa baxaysa waa asturan tahay. ayu tadayunka aad haysatid maxay tahay marka? ilaahay ku amray xijaabka, asaa ku amray salaada. waxaad arkaysaa sidoo kale nin ragga oo wadaad macnaha ka muuqato shakliga diinta ka muuqato, haddana xaaskiisa markuu la dhaqmayo waxaad leesaa ninkan muxuu halkoo ka yimid, xuquuqdeeda ma siinaayo, waa dilaya, waa ku tumanaya kaana inay addoonta u qabaa. war xuquuqdan ilaahay ku waajiba xaaska kuguma waajibinin, haddii aad bixi weyso ilaahay bere kula xisaabtamayo. marka salaadan aad tukanaysid iyo soonkan aad wadid iyo sunnadan kaa muuqato, haddaad xuquuqda aad bixi weyso, sidoo kale waxaad arkaysaa xuquuqda ilmihiisa u bixinaynin. wadaad waa la leeyahay macnaha wadaad markaan dhahay Soomaalida nin kastoo tadayun ka muuqdo, dabcan wadaadka tacriif u baahan yahay laftigiisa, wadaad iyo sheekh iyo in la kala saar iyo ow iyo wax magacyo kala leeyihiin. marka laakiin waxaan ka hadlayaa daahirka wax ka muuqdo. qofka markii halkaas laga arko waxaa la leeyahay had Soomaalida shakliga nin qamiis xiran iyo gar leh hadday arkaan wadaad u maleeyaan, laakiin gar iyo qamiis ma wadaad lagu noqdaa maaha. wadaadka waxa weeye qofka diinta multazimka waxa weeye qofka diinta dabaqanaya, diinta inuu isku dabaqo. marka halkaasuu cararaya, ilmihiisu ka maqan yahay, waxaa laga yaabaa 2 sano maqan yahay, gabadhii uu qabo ma furna, ma qabiyo, xuquuq ma siiyo. balse waxaa laga yaabaa safka masaajidada markii la tagana Soomaaliya meeshuu joogo Afrika, Kenya iyo safka hore safka kaga jira, wardi uu haya. haye wardigaaga muxuu ku taray? xuquuqa lagu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, xuquuqda bini aadamka ma cafiyo, xaqa ilaahay ka gashid. ilaahay mabniy waxaa la yidhaha xuquuqullahi mabniyatu bilmusaamaxa. ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiga ka gashid mashii'ada ilaah ku jirta waxay ku dhisan tahay mar kastaba in lagu cafin karo. in allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfir maa duuna dalik. wax kasta kasoo hara shirkiga haddaa shirki ku dhimanin ha ku geeriyoonin walciyaadu billah, yakfir min duuna dalik liman yashaa, mashii'ada ilaah ku jirta. laakiin lagama yaabo ilaahay inuu xaaskaaga xaqaa ka gashay, cunugaaga xaqaa ka gashay in lagu dhaafo lagama yaabo, ama jiiraankaaga xaqaa ka gashay. idan dadka waxaas kaaga qaldan tadayunka shakliga marka usrada waxay tahay xuquuqdii xaaskiisa ma siinaayo, haddana diintii iyo ku fiican yahay. waxaa laga yaabaa inuu meelaha ka muxaadaraya laga yaabaa, walmusiiba acdam. mana iska maslaxay xaaskiisa ma dhahay walaali cafi xoqa kaa galay xataa ilaa xaqa iyada cafi karta, xataa waalidkeeda iyo qaraabadeeda ma cafi karaan. qaraabadeeda waxaa laga yaabaa wax yar ha sheegaan, laakiin iyada kuu daran, iyada waa ina ka qaadata cafis. gabar kale waxaa arkaysaa xijaabay wadataa, tafsiiray dhegeysataa, axaadiisay maanta dhan waxay ku mashquulsan tahay muxaadaraadka. hadda ninkeeda xuquuqdeeda ma siinayso. ninkeeda xuquuqda ku lahaa war muxaadaraadkan akhrinaysid iyo tafsiirka aad raacanaysid xaqa ka jiro. ilaahay makuu cadaabaya arrintaa, laakiin xaq waa lagu cadaabaya. tafsiir maxaa u bara weyday ama aad daaci u naqan weyday ma lagu cadaabayo. xaq waa fardi kifaaya wey dacwada ilaahay subxana wa tacaala. haddii qaar qumaan qaarka kale waa ka dhacaysaa, laakiin xaq fardu cayn iyo fardi kifaaya haddii isku rimaadeen fardi caynka horeeyo. arkaysaa ninaa kuu soo dacwon wuxuu ku leeyahay islaantiiyo saas weeye, xuquuqda ima siiso, waa iska baxdaa, cashirada aadaysaa, maanta dhan guriga islaamay ku shirinaysaa, maanta dhan duruusaa la bixina. war ninka aawa xuquuqdiisa idan ma ninkaaga maga qaadat? markaad tidhaahid gabadha diin wuxuu ku leeyahy bismi illahi raxmaan raxiim, iidaaba casharada akhriso. laakiin ninkeedii ayaa ah nabigan alayhi salatu wasalaam wuxuu yihi jannatak iyo naartaada waxaa ninkaaga raali garay kabacdi dadka wax u sheeg, ama wax u aruuri, sadaqa u aruuri, waxaad samey, khayrkaad samaynaysid kow gurigaa ka bilaab. idan tadayunka shakli kaa naqda. haddii aad maanta xijaab xiran taho, aad niqaab xiran tahay, oo maanta dhan masaajidada joogtid oo aad dadka kaalmaynaysid, laakiin gurigaaga oo xaqi absat oo ninka kugu laha gudaynin, ya akhi tadayunka qalad, mafhuum qalada haysta, fahamka sax aha ma haysta islaamka. waxa kala saar laadahay fardi caynka iyo fardi kifaayada kala saar laadahay. caynka waxaa ku ah. idan usradii waxaa ka mid tadayunka shakliga waxaa ka mid ah ummad dhan tukato, ninka iyo naagta way tukadaan, ahlu salaad way tafsiir xuquuq ilaah ma galaan, laakiin wuxuu ku leeyahay ilmihayga qaahir u diray, maxaa haye dowladda been u sheegay, wuxuu ku leeyahay aniga reer ilmihii waa raray, waxaan u raray magaalo waddan carabaan geeyey, laakiin wuxuu leeyahay guri waa sii kareystay. war guri haddaa rabta inaad guurtid dad gaalada ha qayaanin u sheeg, waxaad tidhaha waan guuray gurigiina qaata dheh. nin odaya waxa u leeyahay Soomaaliya iska jiraa, gurigiisna uu kareysan yahay. ninkaas waxaa laga yaabaa Soomaaliya jirta masaajidka safka hore ku tukada, intan xaaraana ugu socoto. waa musiibo wey. idan khalal ayaa jira oo ah fahamka diinta ayaa wuxuu naga naqday
markay ay dhaqaale iyo tabar ay timaado in yidhaaho yaa laga tawar badin la 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 islaamkaa ku xukumo weli islaamka guriga waxaa la rabaa islaamka in laga tore cunugaagaa dirtid koo kalena wuxuu ku leeyahay baarlamaanka ku jira waa baxyey ama wasiir weye ilmihiisa wuxuu ku leeyahay lacag oo soo xaday iyo wuxuu kala soo farmasay oo ilmaha usoo dira war ilmaha xaaraantaa siinina waqudiya bilxaraami nabiga alayhi salatu salam ana yustajaabu dacma ku hadlahay malbasuu xaraami xadiiska ahaa oo dhahay in allaha ayib laa yaqbal ilaa ayib wuxuu yidhi waqudiya bilxaraami ilmaha xataa xaaraanta la siiba ka soo baxaysa hadhow xabsi u galaya wuxuu galaya marka nin dhahay aniga dowladda dhisaya ilmihiisan xabsi ku jiraan waa jiraan waa naqaana wasiiro saasa tadayunkaa ka qaldan mas-uuliyadda la weydinayo dowladda maahan waxaa la weydinaya usradan reerkaaga lagu kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raacati farajulu raaci fii beyti ahli yuri nabiga alayhi salaam intaa dowladda soomaali lagu weydinin war reerkaaga la weydinaa war gabadhan oo tadayunka shakliga ku jirto wadaada ah oo haddan xuquuqda ninkeeda bixinaynin waxaa leeyahay tadayun war qofkan dadkan nimanka isqaba oo diintan ku fiican masaajidada xaadirayo laakiin wax isdabamaraya ama sabreedka ku nool ama markay dhoofaan guriga sii karaynayo ama guri qof kale ka karaynayso diinta saas maaha udkhuluu fi silmi kaafa diintan waxaa weeye wixii lagaa reebay walidalika waa danata idaa nahaytukum can shay nabiga wuxuu leeyahay haddaan wax niga reeba fajtanibuuhu laakin wuxuu yidhi idaa amartukum bishay wuxuu le faatuu minhu ma stadactum awaamirtaa ka sahlan yuktafiru fi alawaamiri maa laa yuktafiru fi nawaahi khatarta ee leedahay wax nafasaadii waxay tahay xaaraanta iskama ilaalino ninkeena dhaalimka ah walaalkeena siyaasiga tuuga oo sacbinayna salaadan oo ku jirtaa war salaadaada maxay tartaa hadday kaa reebi karin inaa dhaalimka ka hartid oo salaadaada maxay kuu tartay haddii ay xumada ay kaa reebi karin oo salaadaada soonkaaga muxuu ku tarayaa haddii uu jiraankaaga kaa nabadgelaynin haddii dadka muslimiinta dhan qabiil aska caynaysa qabiil hal qof hadduu ku dulmiya qabiilkiisa dhan caynaysaa war qabiilka dhan haddii lagu soo safayso maxaa samaynaysaa qofka qaad hana ku taageerin qof qabiil nin qof dhan qabiil ha ku dhicin walaa taziru waasiratun wisra ukhra ilah wuxuu leeyahy dinba ninka kale askale reerkiisa maxaa ka rabtaa waa musiiba aan hays marka taas waa meesha nalaga gaaray haddaa taas iska qaban tadayunkaas shakligana dhib weyna dhacay qadka telefoonkaa furayna alo halo الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شخص codkaaga kor u qaad akhi مين مخلص سميع. waa codkaaga weli daciif halkan waa farsamo yaqaanka waxaa fili halkaana wax ka gaaban yahay codka kor u qaad akhi codkaygu waa aniga agtayda tamaam waaye. halo ha haye weyd su-aasha su-aasha rab wax ku weydiin soonka wax kaa weydii rabo bis inuu haye kan magaciisa soonkan hadda ma ahan kii sii horeeyey soon ka tagay soon ka tagay marka magaciisi daruuf jirta awdiisa ugu tagay marka kan kale cudur miyaa daruufta maxay tahay cudur maahan awal mara oo soomaali ku soomaya ahayd yani waa xamali weys ugu adkaaday waa xamali xamili waay nacam marka soonkaasaa ka tagay kan kale hadda iyo kii oo daraad hadda igu imaaday hal sana kasoo wareegatay yani soon kale igu soo galay maxaa u qalay weys inta kale intuu kugu soo galay wallaahi kan magaciisi waa mashquulay iskaasasaas igu soo galay marka hadda gudaayo wax ma diiba marka waxaa yeelaysaa soonka soo gud maalin kasta hal maskiin quudi insha allah okay maskiinka marka qof familkay kamid ah ma noqon karaa waa noqon karaa hadduu faqiir yahay nacam maskiin yahay hadduu faqiir yahay okay hal marna caadi waa sii karaa sax bish hal mar waa siin kartaa soddon maskiin hal mar waa siin kartaa ha يعني صدق قف كلا جدي سنمي أمس حال قفا قصب معها أما كلا جدي أما مت صدق ولا أخو بنانته أوكي طيب تمام شكرا أي بارك الله فيك لينا كلالو هلو هلو qofkaas TV gu dhageysanaya waa ka go'aya markuu tariifki qofka markuu TV ga dhageysanaya waa ka go'aya halo نعك هلو هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وسولي مياه اي ورا شيخ الحمد لله أخي. waxaan rabay inaan ku weydiiyo su'aal diini ah oo ku yara wareersana waa gartay dadka waxaa la sheegay markii aakhira la tago dadka jannada galayeen kitaabkooda midigta laga siiyo waa gartay
dadka gacanta bidixda isticmaalay bidixlaha aakhira markii la tago kitaabkooda ma bidixda laga siini ma taas kuma xirna gacanta adduunka ku shaqaysatay lama jeedo macnaha markii aakhira la tago kitaabka midigta la iska wada siini ninkii oo shaqaystay in midigta laga siiyo fa ama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquul ha umqra'u kitaabi qofka waa ku faanaya qaarna gadaalaa laga siinaya qaarna bidixdaa laga siinaya camalka adduun ku shaqaysatay ku xirantahay maasha allah ilaahay ku barakeeyo sheekh aamin ilaahay ku barakeeyo dhinaca kale halow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أصولي بقى ها شيخ سؤال بارد هاي شيخ صلاة مركي دقوتشر ما عرفت صلاة عادية مركي دقوتشر شيء أكيد وقف كاس واقعهم هاي dhinaca kale halow halow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أصولي مياه ها الشيخ أصولي waxaan ku weydiin lahaa haddii oo adoo xoolo leh ها xoolihii oo aad ka bixinayso sako laakiin aad ku nooshahay waddan Yurub ah oo adna aad cayr qaadato adigo adoo cayr qaato oo adigana tuugsanayo ma suurtagal ma tahay inaa sakadii xoolahaas ku wajibto la baxsho maxaana qof xoolo leh soo ceer u qaadanaa su-aasha meeshaas ku jirtaa saas qof ceer leh qof lacag leh soo lacag qaadanaya in alyad alculya khayru min yadi yusuf la yiri nabiga calayhi salatu wasalaam qof hadduu lacag leeyahay inuu ceer qaato ma dembi baa ka imaanayo nacam been uu sheegay soo ma ceerta lacagta kusoo galaysa beena kusoo gashay maxaa wax ma haysto waxa uu yidhi waa mahadsantahay sheekh baarak allah fiik dhinaca kale halow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ أصولي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أصولي ku salaamay laba su'aal baa qabaa waa tan koowaad tan koowaad waxay tahay inta badan Soomaaliya dadka xeelal ka qabta waxa weeyaan dad oo dibadda ka imaado la dhahaa aqoon-yahano waa garsay dadkaas waxa waaye dad oo macnaha inta badan ilaahay kama cabsadaano amba corruption iyo dhinaca diinta kuma wanaagsano marka waxaa la leeyahay markay imaahayaan waa dad wax soo bartay waxaa laga hormarinaa kii wadanka jooga laakiin aan wax soo baranin laakiin lilaahi ugu shaqaynaya deegaankiisa iyo dadkiisa labadaas qofood yaa u xaq leh inay macnaha ay xil qabtaan qof oo shaaribooyin oo waxbay soo barata la leeyahay oo wadanka day timaada corruption iyo ummadda dhacayso iyo qof istreeda laakiin aan wax baran inuu wax hogaamiya xaq u leh waa garta su-aashaada haye su-aashaas inkastoo xaqiiqatan diin rasmi wax kuma laha qof kastoo caqli laha fahmi kara masalada wadanka ummadda dhan oo ka dhexeeya diaspora iyo kalama laha laakiin qofka waxaa la rabaa in wax lagu kala saarayo inay ahaadaan asalka inay ahaato diin inay ahaato asalka waxaa la rabaa dadka manaasibta loo dhiibayo ama madaxda naqanayo diintiisa in la fiiriyo annaga dadkan ma naqaan dadka la dhiib wax laga sheegayo dad yurub ku nool dad fiicanna way joogaan dad xunna way tagaan way joogaan yurub aan salaad tukan qaar tukado ilaahay ka baqayn way buuxaan marka masalada maadaama waddanka naga wada dhexeeyo ama dibadda ku noolaa ama dabaha ku noolaanin waxa wax lagu xulay inay ahaato waa inay asalkeena diin ahaato xataa ninka dadka hadda baarlamaanka dadka la dooranayo waxaan ku boorinaa war ninka diintiisa fiiriya ha fiirina shahaado dugsi sare ma wataa iyo shahaado dugsi dhex ma wataa iyo jaamacad ma wataa ha fiirina maxaa yeelay waxa mansabka lagu nabiga calayhi salatu wasalaam waa la weydiiyey akhlaaqda waxyaabaha ku wanaagsan akhlaaqda wey qofka khuluqiisa duu wanaagsan yahay oo diintiisa idaa ataaka xataa markii gabar wax la baxsanayo wuxuu leeyahay nabiga calayhi salam gabadhaada iyo waddanka yaa ka weyn waddankaa ka weyn gabadha aad dhashay adiga marka wuxuu leeyahy idaa ataakum man tarduuna diinuhu khuluquhu fiir diintiisa qof fazawajuhu yidhi labadaasaba haddii laga raadiyo qofka meeshuu ka yimid shardi maaha laakiin mushkilada saa sheegta way jirtaayo meesha cuqdo ayaa dadka la abuuray dadka dabadda ka yimid dadka mansab naqanayo dhan dibadda ka baxaya dad hadda diin lagu tuhmayo waa yar yihiin masaarifta dadka qabanayo afkay wax ka sheegaana lagu aaminaa maaha qofka waa la sifigiisa la soo baaro muxuu ahaa jir taariikhdiisa waxaas in la fiiriyo waddankaas u hagaago dhowr jeerna waa sheegna anaga laakiin waddanka gacanteena kuma jiro sidaad moodad weli gacan shisheeya ku jirnaa ilaah naga soo gaaro been iyo laisku sheegino wadanimi iyo waxaa la badbaadi iyo qab iyo waxa jira male dhabta markay naqato qofkana markuu cudurkiisa uu qirto ayuu daawada helaa laakiin intaan been isku sheegayno oo aan kala safannahay dhibkeeda leeda marka haddaa ratid micyaarka wax lagu kala xukmayo waa inuu diin ahaado asal laakiin waddankaas diaspora iyo dadka kale isku nool yihiin waa dad xun way joogaan gudaha laftooda hadday dad fiican joogaan marka
yaanan cuqdiyana la gelinin fiiri anaga waxaa mar kasta waxaa la isku dayaa in la abuuro dagaal diineed hebel waa suufi waa hebel kaas waay ummadda tan lubnaan lagu sameeyey wey iska ilaaliya arrimahaas yaana la gelinin iyo hebel dibadda ka yimid iyo hebel wuxuu ka yimid guduhu ku jira dagaalkaas yaana la gelinin soomaaliya nahay luqad hadal qaan ku hadlana diinteena waa muslim madhabkeena waa shaafici waxdadaas mar kasta haddii laga hadlo dadku waa la isku keeni karaa laakiin intii la faafinaya arrimahan oo kale dhibkeeda leh ilahay xaqaana tusin insha allah dhinaca kale alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh usuli waa cabdiqaadir xasan waxaa dalka kenya baaraka allah ilaah ku barakeeyo aamiin waxaan inaan ku weydiiyo saddex su'aalood tan koowaad waxay tahay tusaale ahaan dadkii nabiga sal alay wasalam xilligiisa oon gaarin oo tusaale ahaan markuu nabiga sal alay wasalam intuu dhalan ka hore joogeen dadkaas oo dhinteen ayaga xalkooda muxuu yahay qiyaamo oo kaleetii aakhiri iyo hadda oo kale maxaa la dhihi karaa ma ehla janna ama ehla naara su-aashii labaadna waxay tahay inta badan mid aan la yaabaa qofa wuxuu ku leeyahay islaam garoob baan guursaday markaas waxaa leedahay waalidkeeda maa ka tugtay markaas wuxuu ku leeyahay maya islaamta garoobta waalideeda iyadaa wadataa sheekh bay u dhiiwanaysaa marka qofkii oo islaantaas oo kale waalidii waxbaan u sheegay intuu meersado iska qabo oo xaajo ka dhaxal marto iyadana maxay noqonaysaa tan labaad tan saddexaadna waxay tahay ilaahay subxaana watacaala waxaa noo sheegay qofku markuu jannada galo inay arkayaan ummadaha dhan jannada ku jiro marka dadka oo jannatul firdaws ku jira darajada sareysa keliya ma arkaya mise qof walba oo janno u galo unbaa ilaahay ku arkaya طيب ان شاء الله waa faham su'aashaada waa faham dhinaca kale halow halo sheekho haye alaikum salaam sheekh عليك السلام sheekho waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo haye sheekho aniga yaraanteydii soomaana baran qur-aanka ilaa like jaanisna maana helin maxaa tiri kusoo celi akhi yaraanteydii qur-aanka maana soo baran waa gartay like waa jaanisna maana helin maahan inay jaanis helay laakiin waqti imuuna saacid sidaa darteed haddana waxaa imaaday qurbaha mid kamid a hadda ku noolaha waa gartay saan ognaana qof walba way dhimanaya oo aakhiri waa la aadaya sidaa darteed marka haddii qur-aanka inaad barta ay ku saaciday aakhire maxaa leedahay xukunkaadasu muxuu noqonayaa waa fahma taas macnaha qur-aankaas aa baran weyse dhib muu ku keenaa ka wadaa ha ani hadda salaada waa dukadaa salaada waa dukadaa like qur-aanka wax yar waa ka aqaana ilaa adiga toban kitaabka ma ka akhrisaa qur-aanka ma ka kicin kartaa qur-aanka may laakiin ilaa adiga hadda yani hingaada wax yara ka kaxeeya akhi waa ka gaartaa hingaarta baro fiiri qur-aanka inaad xifdisid shardi ma aha laakiin qur-aanka in la akhriyaa la rabaa akhriskana wuxuu ku xiran tahay inaad hingaarta barid marka weli jaanis haysataa qur-aanka hingaadiisa baro kadibna kitaabka akhri hadduu ilahay xifdi kuu saqiro waa wanaagsan wey hadduu kuu saqirina اقرأوا القرآن النبي عليه الصلاة والسلام حديث وحوها في إنه شفيع صاحب كيس وشفيع حديثها مرك قراءة دي مهمة إن ما ننتي هالجزء آخر كرتيد ما ننتي إن وح آخر كرتيد ان بال حتى لكن مرك أقانين وآخر أقانين مرك آخر كبروا هنجادة حتى جت أكوته أتجفي سد أجر أكوته فلك أجر واحد مرك وحنا كل إن شاء الله واجباتك إلهي سبحانه وتعالى كو أمر هذا الإيمان يسد وصلاة هذا الإيمان يسد قرآنك ومرتبة زيادة جنة مرتبة غير كوسي جينية لكن ما أصدق نيكي حفظي وايو جنة مقلاي لمرين لنا عكلا هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekh usuli hal su-aal baan rabay inaan ku weydiiyo marka ayaan hore marku weydiiyey laakiin maad fahmin macnaha waxay ahayd su-aal hadda matalan adigoo kale oo sheekh usuli baa shirkada haysataa marka anaa lacag u dhiibtay marka waxay tiri lacagtii bishii markay faa'iidada shaqeyso percentage intaas la eg baan ku siinaya أنا ما لعقتك محاتري waxaa leedahay company aad leedahay adigoo kale matalan moogtahay هاي marka lacag yar oo lacagtaada aan la ekeen baan kuu dhiibtay marka waxay tiri lacagteydii baan ku darayaa ganacsigii waa socda waa ganacsi caadi oo mataqaanaa waxyaabihii online aan ahayn waa gartay marka faa'iidadii bishii faa'iidadii baan waxaan kaa siinayaa lacagtaadii percentage yar sida 10% oo kale ama 15% aan ku siinayaa marka heshiiska noocaas oo kale labada qof dhexmar oo kale shareecadu maxay ka qabtaa طيب wuxuu ku qabanaya ma ku sheegi ha waa ganacsi caadi ah hadda dhismo kale leedahay business caadi oo physical business haddii khasaaro dhacdo ma ku sheegi
tijaarada ganacsi la galayo faa'iido khasaare leedahay hadda faa'iido ku sheegay percentage helis khasaare hadday dhacdo waxa kala qaadinaysa asaga ma ku sheegay may khasaare kamaan wada hadal laakiin shirkad weyn oo caadi ah marka hadda khasaaradii wax min Allah ka yimaad ma hadda khasaare degdeg maya akhi shirkad mar hadii la galayo waa in la sheegaa shirkadu waa kalerna hadda day ahaynin waxay noqonaysaa nin lacag ka deensaday oo lacagtaada lacag ku saaro noqonaysa ribana waa markaas صح nin lacag ka deensaday oo ku yiri 10,000 isii bil kastana lacag waxaan ku siinaa ku saara 10,000 ku lacag ku saara riba noqonaysa ninka deyn noqonaysa markaas oo kale asaa khasaarada xamilayo wuxuu ka deensaday maalka asaa iskale laakiin hadduu ku yiro shirka ku jirta waa inuu ku sheegaa percentagegaas oo ku darsaday ana ku darsadoo kale marka waa inuu ku sheega haddaa ku darsatid faa'iido lagu sheegin lacagta uu kaa deensado la mid yahay deen lacag lagu saaran waa ribo marka waxaa la rabaa markii percentage uu ii sheego faa'iidada haddii haduu khasaare yimaado inuu ku sheego iyo hawsha la qabanaya inaa ogaatid intaas shuruud ay kaamil naqato dhib malo intay shuruudaas kaamil naqato hawsha waa ogahay haddii khasaare yimaado waa wada joognaa ma wada joognaa ma jirto waxa lahay fiir wada joognaa ma gabdho badan lacag waxa loogu aruursaday 10,000 iyo keen kugu shaqaynaya fiir qofka haduu waxa yahay waxaa jira qofka inuu xoogiisa ku darsan karo adna lacag baxsanaysid baacaasna waa banaaya shirkadaas waa banaanta marka shirkad waa in la cadeeyo waxay tahay laakiin lacag keen bil kasta lacagaa ku siinaya adiga waa dadkii wix lagu dhaca waay may waxaas ma waxaas online-ka forexisti waxaas la farsameeyey haddana waxaas la farsameeyey laakiin hala cadeeyo sidee shareecada qabta hala sheego faa'iido khasaaro iyo wax lagu qabana hala sheego intaas waa jazaakum allah khayr dhinaca kale halo 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 walaal su-aalihii diinta ma walaal barnaamijka qayb galaan rabado raadi su-aashaada maxay tahay akhi ukhti waa ku maqlaa cod kor u qaad sheekhow assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu sheekhow waxaan rabay inaan ku weydiiyo nin baan kala tegnay codkaaga kor u qaad ukhti sheekhow waxaan rabay inaan ku weydiiyo nin baan kala tegnay waa garta marka ninkii oo dhibaatooyin iyo waxyaalo fara badan ku kala tegnay oo nabad ku kala tegin waaye codkaaga waa daciif uu noqonaa mararka qaarkood may maqashaa hadda maya hadda si fiican kuma maqlo hadday waa fiicneed halo haddaa ku maqlaa markaa sheekh waxaan rabay aflagaado iyo reerkii iyo waalidkii iyo waxyaalo badan oo loo geystay baa jirta marka uu ku furo kadiba marka inuu furin anaa fasakhay sheekh marka waxaan rabay inaan ogaado hadda arrinta ku saabsan ilmaha yar biilkeeda sababtoo ah waxaan macno lahayna uu bixiyaa codkaaga aad u daciif noqda waqti ayib qofkaas codkiisa waa la garalaya dhinaca kale halow السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ هل سؤال عن قباء قف باوحو نذر بإلهي لقالي دور سنة كهر هدي إلهي هوشاس أو هول حنون بدن كهيسة دويلة وقلادو إنه تدبع عيشة صومو مركا تدبع عيشة قفك وحو إلاوي إنه نذر كوها إنه اسكو حجيسيو إيا إن كله مركا صدح عيشة هدو اسكو حجيسيو أفرنا وكالجيو سيحكم كيدو نقونا يا طيب وكوشي يا لنا كلالو أيه الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا وصلي. وك السلام. بارك الله فيك. مقعي عبد الله أحمد وجوب فيلان. واقر. سؤال وحاك ويدينا هدايا ويل وكويدينا حوغي واحد دبا سعوده. ما حد دبا سعوده؟ ويل ده سؤال وكويدينا سؤال كعقد وكويدينا. هاي. waxay tahay haddaa yaraantaada aadna qur-aanka soo baranin si wiilka daa uu ku weydiihayo kaleeto anaadan hadda macnaha dhowr mar inaad baratay aad rabtay anaadna weli aadan barinin salaadina aad dukato xoogayna adiga ilaa jus ama aad ka taqaan laakiin aadan higaadi aqoonin adiga aad ku dukanayso oo kale qul huwallahi iyo qul yal kaafiruun iyo markaas aad ku dukanayso laga yaabee inaad aad macnaha aad qur-aanka jijibinayso markaad salaada ku dukanayso waxaa macnaha arrinkaas muxuu noqonaa waa garta okay dhageys insha allah jawaabta
su-aalaha hore aan ka jawaabno wiilka walaalka wuxuu weydiiyey su-aasha kuwaad waxay ahayd asxaab alfitra dadka oo islaamka ka horreeyay xukunkeeda maxay tahay dabcan culamada aqwaal badan ee masaladaas ay ka leeyihiin laakiin asalka waxaa weeye mashii'ada ilahay ku jiraan la idlaaqo wax hadduu nas qaas ku soo aroorin le hebel waa la cadaabaa la dhihin oo cadaab gaar oo qur-aanka uu sheegin xadiiska uu sheegin asalka waxaa weeye wamaa kunna mucadabiina xataa nabcata rasuula aayaddaas waxaa weeye ilaahay subxana wa tacala in xujo dadku ogu haddii rasuul uu soo gaarin ilahay ma cadaabayo marka litundira qowma maa undira aabaa'ahum ilahay nebigu waa u sheegay markuu ka hadlaya qurayshta wuxuu yidhi qurayshtan reer bini israa'iil ambiyada laga soo saari jiray marka wuxuu yidhi qoladan looma digin aabayaashooda looma digin marka in la dhaho asalka waxay ku fiican tahay intaad fiiri wax ku sabiti leed dhihi leed waa la cadaabaya waxaad tidhahda in mashii'ada ilahi subxana wa tacala ilaa wixii nas ku soo arooro oo ah hebel waa la cadaabaya ama xadiis ah gaar wey marka haddana su-aashaas waxaan filayaa ummadda ogaanshaheeda diintooda kuma xirna xataa hadduu arrintaas ogaanin diintiis waxay u dhimaysa ma laha lilcilmi iyo dadka cilmiga baranaya iyo arrintaas ka dooda marka dadka caamada ah hadda waxay u faa'iideysa male qofka kasta ilaahay subxana wa taala camalku asaga qabto ayaa la weydiin doonaa lama weydiinayo walaa kii aabayaashiisa ayaa la weydiinaynin wala iska dhaafay dadka ka hore nin kasta camalka waa kullu nafsi bima kasabat rahiina marka lilcilmiyaa loo weydiiya arrintaas laakiin ma aha in dood laga dhigo waa arkay dadaa muxaadara ka qabanayo buuq ka abuuranayo arrintaas dulaabilcilmiga dhexdooda inay ka hadlaan la rabaa dadka caamada wax khuseeya maba ahanba waxay hadda iimaankoodana kuma xirno caqiidadiina kuma xirno in looga hadla ma ah su-aasha kale oo uu weydiiyey walaalka waxay tahay iyadana gabadha garoobta ah oo nikaax la-aan weli la-aan la mehersanayo dabcan madhab dhanaa qabo madhab abi xaniifa qabo gabadha haddii weyn tahay inuu ay weli u baahnayn marka masaladaasoo kale markii laga hadlayane nacam fuqahada waa isku jumhuurka qowl khilaafsan ay lahaan karaan laakiin wax ka ratibmaa male ninka saas ku nool in lagu asturo oo la yidhaaho arrintaas waalidkeed u tag hadda gadaal xataa ka sheeg waxaa tiraa gabadha anaa qabo haddii ay dhicinne ilmihii dhalan xaaraan lama dhihi karo maxaa yeele masalada iyagan xad laguma oogayo xataa maxaa yeele xuduudu shubahaadka laga ilaaliyaa masaladan waa masale ijtihaad qaabil ijtihaada shubaha ma ahan in la dhaho qofka xaaraana ku nooshihiin xaaraana ku nooshihiin xaaraana ku nooshihin la dhaho ilmihiina xalaal ma in la dhaho ma banaano mar haddii madhab muctabar ay qaataan in laga haraa wanaagsan laakiin maxaa wanaagsan maxaa raajixa waa gaar waa in gabadha weligeed laga doonto nacam su-aasha kale walaalka u weydiye waxay tahay ru'yat allahi fi ljanna nacam ilahi subxana wa tacaala waxaa ilaahay dadkii oo ilahi subxana wa tacaala raalli ka naqdo rida allahi subxana wa tacaala ayaa arkaya ilahi subxana wa tacaala nebigu waa noo sheegay sidii dayaxoo kale oo 14 oo ilaahayna u arkaysan oo beyninkiina xijaab ku jirin ru'yada ilaahayna waa nicmada ugu wejida wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira marka ilahay naga dhig kuwa ilaahay aragtidiisa arka maxaa yeele darajo ka weyn oo la gaara maaha oo la gaaray oo ka wanaagsan ma jirta ru'yada ilahi subxaana wa tacaala walaalka waxay leedahay sidoo kale walaala su-aal weydiye wuxuu yidhi nadaruu galay 7 maalmood marka wuxuu ilowsan yahay 7 isku xigta muu yiri mase waxa waye 7 kala baxsan asalka waxa waye 7 kala baxsan wey maxaa yeele itlaaqa mar kasta ka horeeya muqayadka mar hadduu 7 uu hubo 7da uu hubin laakiin waxaa loo noqonaya asalka oo ah inay 7 kala baxsan ay tahay marka waxba uu isku dhimi oo dhihin 4 xariirina iyo 3 xariirina oo dhihin ayaga uu xariirin kulligeed uu xariirinin maxaa yeele maadaama uu shaki wax ku jiro ay tahay xariirinta laakiin la hubo inay 7 tahay asalka 7 waxa waye inay kala duwanaato oo sidoo rab u soomi kara ayaa asal ah insha Allah qofka markuu nadro hadduu qayd u yiraaho inay isku xigta aan ahay markaas isku xigta laga rabaa tiina ma ilmahayo marka shaki wax laguma dhiso saas daraadeed waxaan leenahay waxaa u banaan qofkaas 7 kala duwan inuu uu sameeyo nadarkaas yarkan iyo walaalkan su-aashii ugu dambeysay iyo kii ka horeeyba masalada qiraa'ada qur'aanka fiiri waan sheegnay qiraa'ada qur'aan xifd qur'aan ama qiraa'adiisa waa darajo oo weyn oo ilaahay subxana wa tacaala u gaaro wey masalada saaxiibada qur'aanka oo dhahay iqra waratil kuma sida akhri jirta akhri manziladaas halkaas oo dhahay waa darajo jannada laga gaarayo laakiin inuu qofka intuu awoodo oo barto wey qur'aanka waxyaabuna waa fardi cayn sida faatixada oo kale in la bartaa oo salaada ilayn salaadii caynku ay ku tahay laakiin inta kale qofka inuu barto wax wanaagsan ama wax hadda wax u dhibaayo ma laha qul yaa alkaafiruun qul intuu yaqaan qur'aanka waa ku tukaraa faqru ma tayassara min alqur'aan qur'aankan aayad saas ay ahayd
oo qofka intuu awoodo ayuu ku tukanaya oo salaadiisa waa ku ansaxaysaa marka laakiin waxaa wanaagsan dadka waxaa ka maqan markasta tanaafus la rabaa qofka in la tartamo oo meesha dheer la aado inaad dhihin halaana igu filan jannada halkaan ku galaa jannada kalitaankeeda dadna waxaa waye jannada galitaankeeda ka fikiraan dadna markay jannada galaan darajadii korayeen ay ka fikiraan marka qofka marka waxaa la rabaa ilaahay daa wax baraysa wuxuu yidhi ilaahay nabiga alayhi salaam is'alu lfirdows hala weydiiyo marka taas weydiisto qur-aanka inaad barataan oo akhrisaan ku dadaala laakiin hasdhigin hasdhihin intaana kugu filan hasdhihin insha allah qadka telefoonka halow alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekh suuli waxaan rabaa hal su-aal inaan ku weydiiyo haye su-aashu waxay tahay sheekhow shirkad meeshan oo qaab waxay u shaqaysaa yani aan shaqo ka codsaday waa garta qaab oo waxay u shaqaysaa marka yani sida systemkooda yani dadaad yani la wadankee wey xiriiraysaa oo ayaga kula soo xiriira yani dadka markay kula soo xiriiraan waxaa u sheegaysaa qaabka shirkadda u shaqayso oo ah yani cayaarahan oo lacagta ay u dhiganayeen cayaar ay saadaalinayeen lacag ay u dhiganayeen may akhay shaqadaas ha ka shaqayn insha allah maxaa yeele maysara ku jiro lacagta la dhigta qamaar weye qamaar marka haddaad dadka isku keentid ama dacayad u samaysan dembigeeda leedaha ha samayn insha allah dhinaca kale halow halo mii maqashaa sheekh ha magacayga waxaa leeyahay jibriil cimso waxaa wadaad gurbaa ku nool ee dalka Ingiriiska waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrintan baraha bulshada bari aan qabsatay sheekhu waxaa jira gabdho badan oo aniga aan isla wareernay oo mar walba su-aalo weydiiyo fiidiyada xun ee la faafinayo macnaha marka aad haddaa wax knowledge ka haysatid sheekhow ragga iyo dumarka arrintaas yaa ku qaldan ilaan fiidiyooda badi aan arkayno waxaa la arkaa gabdho Soomaaliyeed oo ku faraxsan fiidiyooga marka aad fiirisid iyo qaabkay u socdaan marka aniga marka jawaabaha aan ka bixin waxay ahayd inay dumarka taleefanada ay ayaga duubaan aysan ragga u eedi karin marka dadka qaarna way ku qanceen dadka qaarna kuma aysan qancin wax knowledge sheekhu ma ka haysataa adiga ama looga hortagi kara arrinta noocaasi raggii dumarna yaas ku qaldan waana mahadsan tahay طيب dhinaca kan halow السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وكو سلام سيتاي وعليكم السلام ورحمة الله أخي بارك الله فيك الله ku barakeeyo sheekh hadda inaan ku weydiiro haye su-aasha koowaad waxay tahay sheekhow haddii ilmaha waqlasha ah hal mar ma loo waqlali karaa oo haddii isgaaraan nacam waa loo waqli karaa haddii ilaa iyo ay isgaaraan hal dibiya u qali kartaa ilaa 7 cunug sax su-aasha labaad waxay tahay sheekhow haddii naaga isfurnay markaa isfurnay waa kala tagnay muddaa kala maqneen marka koowaadna waxaa ku furay 2 dalaaqo muddo kadib waa isku soo laabanay markaa isku soo laabanay waan isguursanay marka hal dalaaqa kuu taalaa lay dhahay marka arrintaasna maxaa ka leedahay طيب waa kuwa kaga jawaab dhegeystaas jiraan halo dhinaca kale السلام عليكم شيخ سليم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام waxaan ku weydiinaa sheekhu xaaskeyga waxaan u suubiyey birthday party dambi miya maxay tahay birthday sanadkeeda dhalataa mase sanadkii dhalata nacam adiga ma samaysad adiga ma samaysad aniga ayadaa ii suubisay ya ayadaa ii suubisay labadiina isku suubisan iyadina adee kuu suubiso adna adaa u suubisa طيب انت سامعين ان ويديسا ku fiicnaad hadda waa samaysay soo ma طيب dhageysa jawaabta insha Allah هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سؤال ويدي waa gartay ilmaan dhalay hooyaa waa gartay hooyada ilmaha qaar waa iga warqabaan inaan jiranahay inaan noolahay inaan caafimaad qabo qaarna maba iga warqabaan waa gartay haye ilmahaas raxmadeed u simi karaa aniga anaa ee dhalay dhageysta jawaabta insha Allah haye طيب dhinaca kale halo su'aalaha ka jawaabna soo ma nacam su-aasha akhi wuxuu weydiiyey fadaaixdan ka socota social media aniga waxaan filaya xalaqaada ka sameeya social media
social media dembi yaa leh dadkan xataa dadka daawana dembi leeyihin adiga warka walaalka waxaa laga yaabaa inuu rabo inuu ogaado ragga maalema ragga iyo dumarku waa leeyihiin maxaa yeele ninka fadeexa faafiya oo ragga ah oo faafinayo dadka daawanayo ilahi subxana wataala wuxuu yihi cadaab ayaa lagu u ballan qaaday gabadhi asalkeeda samaysana man sanna sunnatan sayi'a cajarkii soo duubtana dembi ay leedahay idana balse dadka dhegeysanayo oo markay arkaan waxaas maanta dhan dhegeysanaya iyagan dembiga waa leeyihiin marka cid dembi social media haddaa ilahi la iskaaga cabsanin oo aan gabdhahaas la waaninin waddanka xataa halaga ku sugan yahay maxaa yeelay hadday faaxishada faafto oo aan la celin waayo waxay noqonaysaa ilahi subxana wa tacaala mutrafiinta fi lardi ilahi qur'anka wuxuu noo sheegay ilahi hadduu qarya halaag la rabo waxaa la yidhi amar mutrafiiha fafasuquu fiiha fasqii la imaanayaan marka fusqigaas ilmaha yaryar oo lacagta iyo meelaha ka samaynayo oo ilaahay ka cabsadaan dadkeena waayeelada dadka culamada gudaha joogto iyo kuwa dibadda joogto in loo kala harin oo runta loo sheego balse dowladda cadaabka dowladda laga bilaabo kuwa maamulka hayo maamulka banaadirka hayo kan meesha hayo aan fiirinaynin aan ku mashquulsanay kursigaas yaa koraya ku mashquulsan xumaanta dhacayso iyo liida ka dhacayso meelaha ka dhacayso aan ogeyn oo umalay kan wasiirka ama kan madaxweynaha umalay inaa ilaahay weydiinaynin berri hadduu umalayo wallahi berri waa la weydiinaya maxaa yeele asaa qaaday falimaamu raaci wahuwa mas-uulun can ruxuu nabigu alayhi salatu wasalaam nin kastoo gudoomiye waax ah gudoomiye degmo ah war booliskan iyo waxaan maanta dhan isku kacsanaysaan oo kursiga iskula dagaalaysaan mama waxaa la waayey boolis aadaab maa la waayey dowladda may waysa dowladda aadaab bini aadamka fiiri haddii xornimo la siiyo bini aadamka wuxuu raba uu samaynaya dowladna waxay anfaceeda waxaa kamid ah dadka waxay dabdisaa dadka qaanuunka ka hor imaanaya qaanuun waa loo dejiyaa waa in arrimahaas dowladda kale war ninka booliska xukuma kan militariga xukuma xooshiina dhan waxay taraysa malaha haddii maanta waddanka fasqa waddankan waa niguduma korkiinu kuduma maxaa yeele ilahi subxana watacaala meeshay balaayo ka dhacdo waxaa la yidhi wataquu fitna laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa ha umalaynina kuwa iscelcelina balse hay-adaa ka dambeeya oo raba ina fasqigaas nagu faafo hadda kahor waxaan sheegay kufsiga waxaan dadka wax kufsada dadaa lacag siiyo kufsadaa la yidhaha in sheega islaamo kalena waxaa la siiya waxaa la yidhaha tv-ka qayliga kufsiga laga hadlo culamada ha ka hadlaan ay culama maanta mas-uuliyadda raggay saarantaha maxaa culamada ugu soo ardaya ninka madaxda ah gobolka ka ah iyo kan degmada iyo kan booliska xukuma kan madaxweynaha kan wasiirka kan ra-iisul wasaaraha ka hara ilahay kula xisaabtama hadday howsha qaban karin ilahay subxana wa taala wardiintooda u baqaan beri godaa la gelinaya walla meeq madaxweynaha calan lagu duuduubay godkaas markaa geshiin ilmahaas waxaas faafinayo ama mas-uuliyaddeeda qaadi weysin waan ila weydinaya ilahi subxana wa taala waan weydinaya ama qofka dadkan dibaddeer jooga oo u sacbinayo nin kastoo u sacbiyo dulmi iyo xaaraan u sacbiyo ilahi subxana wa taala asagoo lamid yahay uxshuruuhum ilahi subxana wa taala halala soo saaro daalimiinta ala soo saaraya marka ilahay ka baqno waxaan baran inaa eed le isaar saarno hebelaa gartar hebelaa qalad iskale yaa qalad ummadda dhana qalad ku jirto cid ka fakanaysa male adiga dhegeysanayo adiga fiirsanayo kii soo duubtay ninkii faafiyey kulligood dembigu waa iskugu mid marka waxaa le ittaqu llaha ilaahi subxana wa tacaala beledkaas ummadda u baqa hadda waxaa laleeyahay xalana waxaa laleeyahay fasqiga ka dhaca ma naqaanbo gaalada meesha ninkay gabdhahay gashtaan iyo kuwa dibadda ay ka keensadaan iyo waddanka waa qasan yahay waddanka yaa been laguu sheegin cid ka hadli karta mala xalana walaa qof ka hadlaysa mala fasqiga kaas cala alaqal waa asturteen kaas waa asturan yahay laakiin waxaan lala jahrayo cadowga oo ummadda la rabo in laga dhigo ummadda laga dhigo qof dad aan akhlaaq lahayn oo dhaqanka soomaaliyeed akhlaaqa ku dhisnaa waxay soo jireen dumarkeena oo raggeena waxay soo jireen odayaashu waxay soo jireen ummad le kursi iyo lacag le saa u yeeshada rabto lacag le oo lacagta meeqa mar ay yeelan kartaa malaayiin haddii caawa nafta kaa baxda maxay ku tarta malaayiin nas'al allah salaamata alcaafiya su-aasha kale walaalka uu weydiiyey wuxuu leeyahay gabaraan aan furay laba dalqa ku furay kadib waan soo ceshtay kadib haddana nikaax cusubaan muddadaa ka dhamaatay masaladaas masalat alhadmi allah fiqiga waa ku jirtaa madhabka xanafiga markii laga bareeyo jumhuurka ra'yiga qabaan qolka jumhuurka lagu qabtay sida muuqata oo ah qofka waxaa leeyahay wuxuu u haray kusoo noqonaya baynamaa madhabka abi xaniifa uu qabo waa ninkan cusub oo macnaha uu gabadha guursaday hadduu nin dhex galaa laga hadlaya masaladaas hadduu nin dhex galo macnaha gabaraa la furay hal dalaq lagu furay laba dalaqo ninay soo guursatay kabacdi ninka soo furay kabacdi ayaa haddana ninkii hore ku naqatay ninkii hore dalqada u hartay kusoo naqanama saddex taasaa la isku hastaa iska dhaaftaade
taada waa caddahay taan khilaaf kama taagno oo ah qofka hadduu hadda furo gabadha hal dalqo ku furo oo markaas muddadii ka dhamaato soo noqdo halkaas dalqa waa ka baxda laba dalqa u harayso haddii laba ka baxdana hala u harayso taas waa ti xukunka raajixa lagu sheego waa kaas wey laakiin masale kale jirto khilaafkeedu uu yahay laba dalqa hal mar haddaa ku furtay misla dhace misla dhaceys waa masale kale iidan insha allah walaalka wuxuu leeyahay sidoo kale xaaskayga wuxuu yidhi ciid miilaada isku samaynaa masalada ciid miilaada ah waan sheegnay waxyaabaha nicmo waa ilaahay subxana wataala lagu xusi karo ilmaha yaryar haloo dhigaa dhahna anaga laakiin qof waa weyn dadka waa weyn iyo u bilaaben ilmaha yaryar waxaan fatwoonay yurub dadka ku nool ciid miilaadka hala islaamiyo maxaa yeele cunugii haddaad u dhigin beertidii haddaad u dhigin ilmo galagaala iyo arkaya sidii gaalada loogu dhigaya marka dad islaam ah si hala islaamiyaa dhahnay waxaa leeyahay cunugaaga maanta waa dhalatay ilaa iskoolka laga sugaa waa la yaqaanaa ciid miilaadiisa dad beertiisa waa la yaqaana waqtigoo dhashay marka inuu aad sadaqa u dhiibtid ama shokolaata u dhiibtaa tira maanta ilmaha u wasac maanta waa shukri nicma ilaahay adduunkan ku keenay inaa ilaahay ku shukrisa waa bannaan tahay nabiga alayhi salatu wasalaam markii la yidhi maxaa isniin u soomaysaa waa ciid miilaadkiisi waay nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi daaka yowma wulidtu bihi fii maalinkaa dhasha waa wiilan wulidtu fiihi maalinkaa dhasha soo maha marka nicmo u bixiyey oo uu ku shukriyey waa soomay marka ilmaha in la dhaho maanta beertigaaga wahaa soon ilaahay u shukri sadaqa bixi qaraabada wax u dir waxaas waa fiican tahay laakiin waxaan uu ah gaalo laga daynayo u ah inaad samaysaan keeg alkeena iyo kandalka la sura iyo waa la afuufa ma banaan atashabuh bilkufaar waa kaas ma banaan laakiin nicmadaas laga shukriyo khaasatan dadka wey marka waxaan igu talin lahaa ciid miilaadka inaad iska dhaaftaan ciidda as guursateen xasuusta ala aqal maalinka ilaahay niskiin xalaaleeyey maalinkaas xasuusta insha allah su-aasha walaalka kale wuxuu leeyahay hooyo wey ilaahay subxana wataala hooyadaas ilaahay umuuraheeda saqiro waxay tiri caruuraan dhalay qaarna waa iga warqabaan qaarna igama warqabaan waxaan leeyahay hooyo waxaan ku leeyahay horta hooyaa tahay hooyana markasta qalbigeeda ilahay subxana raxmo ku abuuray cadaaladana inaad ka tagtid maaha ilmaha haddii aragtid inaad lacag u qaybisid kuma xirno kanaa baari i ahaa iyo kanaa baari ahayn taas masaladaas waa masalada caaq wey ilmahaas hadda aan ku xariirinin naartooda banaankee taala hadda adigo cafinin naartooda banaankee taala maxaa yeele ninkii waalidkiisoo nool nabiga alayhi salatu salam markuu mimbarka koray oo jibriil duceeyo amiin amiin yiri wuxuu yidhi man adraka waaliday xay ninkii labadiis waalidoo nool oo aan janno gelin aan loo dimi dhaafin aan janno gelin wuxuu yidhi ilahay naartaa ku fogey nabiga jibriil habaaray ilaahay nabigana amiin uu yidhi marka adiga khataray ay ku yihiin oo iyaga maanta cadaabkooda banaanka dhigtay kuwa uu ku soo xariiriyena jannadooday qaateen uu qofka waalidkiisa xariiriye jannou galaya ama adiga xuquuq haddaa ula jeedid aragtid haddii aad dhehis dhaxal ilmahaygaa gurigan ku qura kii xariiri jir ma banaan waa dimbaabaysaa maxaa yeele cunugu wuxuu xaqiisa ku kasbaday asaga hadduu dimbaabo adiga ha dimbaabin hadduu asaga dimbaabay oo waalidkiisa xariiri waayo caasnimo ilaah u qoray adiga ha dimbaabin haddii aad dhaxalka ka dhehis waxaa leedahay ilahay si u qaybi dhaxalka u qaata dembiga faraha kala bax haddaa wax siinaysidna u sin ilmihii ha fiirin qofkii oo baahi badanna waa waxa siin kartaa ilmaha taas cadaalad kuma jirto marka adig iyaga cadaab u socday adi cadaab ku gelin u duceeyo ilmahaas ilaahay subxana wataala inuu xaqa tuso maxaa yeelay waxaasiisa waxa kaga daran cadaabka sugaya kaga daran ilahay waxaan ka baryay kuwa waalidiintooda baara u naqda allah naga dhigo hadday dhintaan iyo hadday nool yihiinba baar yal u naqan karaa waalidka adigana hooyaa tahay u duceeya ilmaha haddaa xaq siinaysidin xaqooda caasinimo cunuga caasiga odagiis waa dhaxlaya hooyadiis waa dhaxlaya qasb canhu wax ilaahay bixi weye waalidnimo waxay ku heleen adiga calooshaada kasoo baxeen ku heleen baarnimada iyo caasinimada waa wax ilaahay ka jaazaynaya way waqadaa rabuka allaa tacbudu ilaa iyah wabilwaalidiina ixsaana ilaahay subxana wataala amray arrintaas aa gooyey inay arrintaas marka ilaahay ku caasiyeen ninkii waalidkiis ku caasiyey marka waxaan leeyahay u duceey ilahay naga dhiga xaqa su-aashaasa ugu dambeysa wax haddaan qalda nafteyda iyo shaydaani ka ahaatay haddaan saxna towfiiq ilaahay subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayh wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu